qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta maray la hadleen warbaahinta maxalliga ah waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ah ee dagaalada soo noqnoqday ku dhaxmareen degmada Ceelaf Weyn iyo qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada waxayna ku adkeeyeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisu inay tallaabo adag ka qaadaan oo ka duwantii xukuumadda Axmed Siina iyo colaadaha Sokoye ee ka soo noqnoqday deegaanadaasi sidoo kale waxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka codsadeen inuu madaxweynuhu qaabilo ergada ku sugan magaalada Hargeysa ee ka soo jeeda gobolka Sanaag maadaama ay yihiin waxgaradkii ka shaqayn jiray nabadgelyada haatana ay xaalad adag oo colaadeed ku gadaaman yihiin gobolka Sanaag siina daayo boqor buur madow oo ahaa boqorkii nabadda iyagoo amuurahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen baaqa kulaarkan waxaan jirayaa beelaha walaalaha ee ku dagaalamay degmada Ceelaf Weyn iyo aageeda ee shaydaanku isku diray ee uu ka dhaxadeeyay waxaan u dirayaa inay nabadgelyada iyo xasiloonida iyo walaalnimada usoo noqdaan oo istaafuraleystaan oo ilaahay u noqdaan oo wasiirada xukuumadda iyo kuwa gobolkaba iyaga oo mahadsan inay qaabilaan odayaasha Hargeysa jooga ee muddo u fadhiyay xukuumaddu hana qaabisho horta hadii la wada hadlo marka ceelay yeeshaan reer Marcabaay waxa laga yaabaa inay khayr tahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxay odayada hal la qaabilo oo hal la qadariyo iyaguna amaamiirta xukuumadda ha hogaansanaadeen nabadgelyada ka soo direen xukuumadda iyo madaxweynuhu ha qaabilo rabshada dambe dhacday soo noqotayna ha ka qayb qaateen waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo nabadgelyada deegaanadan ka shaqaynaysa waxaan baa u dirayaa horta marka ugu horeen labada beelood ee walaalaha ku dagaalamaya waxaan kaloo runtii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan u diray oo waxa weeye mar labaad iyo mar saddexaad sida uqaash hore ay sheegeen nabadgelyada deegaankan cidii ku shaqayn lahayd ee hawsheeda fulin lahayd waxa weeye markii hore ku jiray waxa weeye waa dadka horumarka gobolka Hargeysa jooga si gobolka loo horumarin lahaa si deegaanka loo horumarin lahaa ee Hargeysa jooga dhowr jeer baa lagu soo noqday inaad qaabisho qaabilaadii wasiirada dirtay wasiiradu waa joojiya waxaan madaxweyne ku sheegayaa waxa weeye danta guud ee nabadgelyada dadka ka shaqayn lahaa waa dadka albaabka ka xidhatay aday u soo dirtay wasiirada deegaankan wax wasiiro wax qabanaya ma jirto kuwa hore waa yimaadeen laakiin waxa ku xasuusinaya hadii la doonayo nabadgelyada laga shaqeeyo deegaankan waxa ka shaqayn kara dadka Hargeysa jooga ee gobolka Sanaag ka wada socda hadii xildhibaano tahay hadii cuqaan tahay hadii ku xidhan tahay annagu cid alaalay cidii nabadda ka shaqaynaysa waan soo dhaweynaa waan taageersanahay xukuumaddana waan taageersanahay waxaan kale u sheegnaa madaxweynaha dadkii waayeelkii gobolka Sanaag waa kuwa Hargeysa jooga ka shaqayn jiray nabadda waxaanu leenahay madaxweynuhu la kulmo waayeelka jooga Hargeysa ee gobolka Sanaag si ay uga shaqeeyaan arrimaha nabadda dagaalada halkan degmada Ceelaf Weyn ka socday waxaanu aad iyo aad ugu hogaansami doonaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hawshii faraha badnayd dagaalkii faraha badnaa ee ay degmadan Ceelaf Weyn iyo nawaaxigeeda colaadii ka dhacday ay ka shaqaysay maanta hadday xukuumaddu nabad naga doontana waanu ku taageersanahay inay xukuumaddeedii tahay iyo inay nabadgelyadu maslaxad tahay waanu taageerin laakiin waxaanu doonaynaa waxa ay dawladdu noqdaan leedahay in ay u fiirsato maanta meesha wax ka xidhmi lahayn mar walba waxba la dhaafayo wixii horeynayay baa la dambaysiinay waxaanu kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirada u sheegaynaa ka codsanaynaa waayeelkii gobolka Sanaag nabadda nooga mas'uulka ah waa kuwa jooga Hargeysa waxaan bay leeyihiin oo madax dhaqameedkaygu uu xidhan yahay madaxweyne ka xidhana loo soo daa ka Hargeysa u fadhiya hawlaha qarankan uu leeyahayna la kulano ay nabadda u taageeraan u soo dir waa dadkii nabaddu waa dadka halka jooga Axmed Mursal Askar Star TV Ceelaf Weyn.